iyadoo dhawaan taliska guutada tobnaad qaybta 43 ee ciidamada xoogga dalka ay shaaciyeen xoreynta deegaanada Jubbooyinka ee gobolka Gedo ayaa waxaa si qiidhexe xalay bilowday howlgalkii wadooyinka isku xira magaalooyinka Baardheed iyo sidoo kale magaalada Saako oo ka wada tirsan deegaanada Jubbaland. inta uu howlgalka socday waxa al-shabaab loo geystay qasaarooyin kala duwan oo naf iyo maalba leh iyadoona gacanta laga soo dhigay dhagar qabyaal ka tirsan nabadiidka. sidoo kale ciidamada ayaa burburiyay saldhigyada nabadiidka ay ku leeyihiin deegaanada Caanole iyo deegaano badan oo ay ka mid tahay deegaanka Mataano isla markaana nabadiidka ay ku dhibaateyn jireen dadka ay gaadiidka isticmaala wadooyinkan. taliyaha ururka 49 ee magaalada Baardheed Dhamme Cali Maxamed Xasan ayaa warbaahinta la wadaagay ujeedka howlgalkan iyo sidoo kale qasaarooyinka nabadiidka loo geystay. Caanole ayaa waxa uu jirnaa 8 kiiloomitir howlgalkan wuxuu ku sii wajahan insha Allah taala ilaa iyo Saako uu du'aala ku wajahan yahay insha Allah Rahmaan waxa weeye maalmahan soo aadan inaan Saako ka soo hadalno jecelna insha Allah waxaan qabanay laba nin oo kamid ah nabadiidka ku dhumaalaysanayay goobaha mataqaana bulshada dhexdooda iyo hal mooto laba wiil oo ay wateen mootofiya kala laba xabo maxdiisana ka qaban waana soo bandhigi doonaa hadii Allah uu maray Soomaaliya digahan waa laga diyaariyay annagana wada aragtaa ururka 49 waxaan rajaynaynaa insha Allah taala maalmahan ugu soo aadan inaan Jubbooyinka iyo digahan Soomaaliya laga xoreyn doono ma sha Allah wada aragtaa deegaanka sida looga baxay waxa looga qaxayna waa nabadiidka dartiis al-shabaab ayaa looga qaxay maadaama al-shabaab looga qaxay waxaan rajaynaynaa inay gacantanada ku soo noqon doonto bulshadana ay imaan doonaan waxaan u lahadalnay si dowladnimada ku dhaahan waxaan ku nidhi dowladdiini baanu nahay waayahay ujeedka guud ee howlgaladan marka maxay noqon doonaan ilaa goormay socon doonaan ilaa Soomaaliya digahan laga cirib tiraa nabadiidka al-shabaab oo soconaya howlgalkan. saraakiisha hogaaminaysa howlgalkan ayaa xaqiijiyay in howlgalkan uu sii socon doono ilaa ma laga gaaro xoreynta deegaanada nabadiidka ee maamulaan ee ka tirsan deegaanada Jubbaland gaar ahaan magaalada Bu'aale ee gobolka Jubbada Dhexe. Umar Idris Ahmed warbaahinta qaranka magaalada Baardheed ee gobolka Gedo.